xildhibaano ka mid ah kuwa taageersan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xarunta golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ku taala magaalada Muqdisho shir ku yeeshay warkaasi oo faahfaahsanna waxa inoo hayay wariyahayaga Muqdisho Cabdullaahi Axmed Nuur xildhibaanadan oo gaaraya 115 mudan ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen buuqay shalay ka dhacay fadhigii baarlamaanka kaasi oo ay xildhibaanadan ugu hor yimaadeen mooshinkii kalsooni kala noqoshada ahaa xildhibaanadan ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen kulankooda kadib waxa ay ku sheegeen in tilaabadii shalay ay qaadeen ay ahayd mid ay ku badbaadinayeen qarannimada Soomaaliyeed war-saxaafadeed ka soo baxay 115 xildhibaan ee meel ku wada kulmay wuxuu leeyahay sidatan waxa ka dhacay baarlamaanka buuq iyo sarwaxan ka dhashay in gudoomiyuhu hor keenay baarlamaanku mooshin sharci darro ah oo xildhibaanada baarlamaanka horay ugu digeen in baarlamaanka la hor keenin haddaba waxa halkan ka cadeynaynaa sababta dhalisay buuqaasi iyo sarwaxankaasi waa buuqii shalay ka dhacay maxaan ku raahdaa baarlamaanka dhexdiisa dhaliyena mooshinka kow in khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu ku salaysan yahay talaabadii isku beddelka shafalka golaha wasiirada ahaa taasoo uu madaxweynaha ka hor yimid isla markaana uu amar ka bixiyey in wasiiradii la isku beddelay inay amar diido sameeyaan kadibna u abbaaro mooshin inuu loo isticmaalo sharci darre ah oo lagu ridayo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa labo guddoomiyaha baarlamaanka oo ku adkaystay inuu hor keeno golaha shacabka mooshin siyaasadaysan oo sharci darro ah in kasto laga soo abaabulay madaxtooyada laguna bixinayo lacag oo kheyr sharci ah laaluush ah oo sharci darro ah waxay ahayd in arrintaasi lagu xaliyo isfaham iyo wadahadal taasoo oo ay soo jeediyeen xildhibaanada iyo beesha caalamka laakiin uu madaxweynaha ka dhiga adeegay afar wuxuu guddoomiyaha golaha dhexdiisa ku goodiyey in tallaabo laga qaadayo xildhibaanada ka hor yimid mooshinkaasi sharci darrada ah ee siyaasadaysnaa xildhibaanadaasi oo u istaagay ilaalinta dastuurka iyo badbaadada qaranka Soomaaliyeed iyo hanaanka dawliga ahi ee dimuqraadiyadda ku salaysan hadalkan maanta ka soo baxay xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka ee taageersan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli uu sii kordhayo walaaca ay beesha caalamka ka qabaan mooshinka ka dhanaa ra'iisul wasaaraha iyo cabsida laga qabo in ay isku dhacaan labada garab ee xildhibaanada baarlamaanka kuwaasi oo tiro ahaan aan kala fogeyn Cabdullaahi Axmed Nuur Universal TV Muqdisho